ليه دندامي ليه قاضي ليه هجاتي إلى هيبان كدارته سيدان ولقد ليه قبان بالليه قبته هيدا صعد كيغن كهري معنات صعد كان كتجي عرقابي مكرينا waxaan socday waxaan oran karaa 12 saacadood hadaan ka badnay imikana wax ka yar 1 hour ayaan soo socday faraxsanahay sababtoo ah saaka marka 8 soo toosay waa quracay tartiibtii hotelka 9 airport ka tagay 10 diyaada baxaysay easy waa kan markii waa 11 wax laana waxaan joogaa habeen baan u dhixi jiray ceerigaabo markii dambena habeen wax ku dhow baan u dhixi jiray saacado ugu yaraan 12 saacadood 13 saacadood baa la socon jiray marna rafahayd marna xoogaa laami ahayd dibbayba ku ahaydba alxamdulillah isbedel weyn baa yimid laba sanadood ayaa ka soo wareegtay markii hay'adda duulista madaarada ee Soomaaliland ay si rasmi ah u furtay dhabbada diyaaradaha ama madaarka magaalada Ceerigaabo taasi oo dadyow badan oo kala safra magaalooyinka Ceerigaabo iyo Hargeysa ka dulqaaday culayska masaafada ay isku jiraan labadani magaalo ee Ceerigaabo iyo waliba Hargeysa waxaana magaalooyinka Ceerigaabo iyo Hargeysa oo masaafo ahaan isku jira in ka badan 600 oo kilomitir ay waqtigii hore ku qaadan jirtay dadka gaadiidka u isticmaala magaalooyinkan inay u socdaan in ka badan 12 saacadood balse hadda dadka ayaa in ka yar hal saac u soo socda isku socodka magaalooyinka Ceerigaabo iyo waliba Hargeysa dadyow badan oo iyagu ay ku adkeyd inay galaan safarka dhinaca dhulka ayaa hadda u fududaatay inay ku safraan labadaasi magaalo ee Ceerigaabo iyo waliba Hargeysa oo ah laba magaalo oo masaafo ahaan aad u kala fog hadda ka hor waxa jirtay dad xanuunsanaya oo sakaraada oo magaranaysa xaalkoodu serious yahay oo muddada laga soo qaadayo Ceerigaabo ee la isticmaalayo baabuurka muddo fara badan ay ku noqonayso qofkaasi aanu kareyn hadda waxa Ilaahay mahadiyay Ilaahay inoo suura galiyay flightkaasi inuu si degdeg ah saacad iyo 10 daqiiqo saacad iyo rubuc oo ku keenayo Hargeysa isku xidhka madaarada Ceerigaabo iyo Hargeysa waxa kale oo ay kor u qaaday isku socodka ganacsiga magaalooyinka iyo guud ahaan Soomaaliland 624 kilomitir iyo in ka badan 13 saacadood oo loo kala socon jiray magaalooyinka Hargeysa iyo Ceerigaabo hadda waxa lagu soo koobay oo kaliya 1 saacadood wax ka yar sida ay ka maqraati kaceen dadka iyagu u kala safray madaarka Hargeysa ilaa Ceerigaabo